السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنالك مركز السود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنتوا سبتي وأنا لبي لباتنك بيش السديدات أغسطس سنة كلبض كون إيا اللحية لباتنك muuqaal kan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago dadka Soomaalida ee green card kale oo inta ay Afrika aadaan 6 bilood ka badan maqnaanaya arinta haweeneydan waliba ayeeyada ku dhacday oo kale ayaa kugu dhici karta marka waxaan rabaa inaan sheekadan aan idin la wadaago sidoo kalena waxaan dadka green card ka codsanaya waxa jirtay sharci dawladdu ay soo saartay oo la yiraahdo public charge dadka ku tiirsan lacagaha ceyrta ah amaba barnaamijyada dawladdu ay bixiso hadda kadib yaa green card ka loo ogolaanaya yaa loo diidaya sidoo kale waan idin la wadaagaya maxkamad federaal ah oo maalnimadii shalay ay diiday amarkii madaxweyne Trump uu ku joojiyay in viisayaasha la siiyo dadka ka imaanaya 75 wadan sidoo kale waan idin la wadaagaya waxa jirtay sidoo kale dad loo masaafuriyay wadamo Afrikaan ah oo Liberia ay kamid tahay oo qaarkood markii la geeyay ay diideen in diyaaradii ay ka dagaan laakiin haddana la qaaday oo wadan kale oo Afrikaan ah la geeyay xoogna diyaaradii looga dajiyay dadkaasi wadamaday ka kala yimaadeen ayaan idin la wadaagaya iyo muxuu yahay heshiiska wadamada Afrikaanka iyo dawladda Mareykanka ka dhaxeeya oo ah inay aqbalayaan dad aan wadankooda u dhalan in wadamadooda la keeno arimahaas oo idil ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore soo dhawaada dugsiga casriga ee Tarbiya Islamic Academy waxa uu kugu bushaareynaya goob kasta iyo goor kastaba inaad hab online aad ku baran karayso barashada Quraanka barashada higaada iyo shareecada Islaamka waxaana meesha ka maqneen barashada luqadda Carabiga ee tarbiyada awlaada hadaba dugsigu waxa uu qaadanayaa fasal cusub qaybta dadka waaweyn iyo fasalada caruurta wali fursada qaaliga ka faa'iideyso haatan ka wax telefoonada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa inaan ka cilmi qaadano dugsiga Tarbiya Islamic Academy umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana luweyn karo xilliyada salaada labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex barida qaabka loo guto acmaasha umrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin bishaaro Columbus waxa laga furay Lalis Spare Parts oo ah goob lagu iibiyo qalabka biraha gaadiidka waaweyn ee traaga loo yaqaan gaadhiga ayaan iska dhigay oo aan birihiisa waayay nasiib wanaag waxaan ka helay Lalis Spare anigaba waa iska dhigay gaadhigaygii qalabkiisana waan waayay halkee ayaan ka heli karaa dukaankaas waa Lalis waxaana laga furay Columbus Ohio hadda hore u gaar waxa xarunta aad ka heli kartaa qalab walba waana xarun loo diyaariyay hab mustaqbalka aan baahi loo qabin meelo kale in la aado qiimo jaban tayo adeeg hufan iyo waliba dalabyo gaar ah waxaad soo wici kartaa xarunta adoo jooga geerashkaaga gaarigaaga gurigaaga isla markaana dalabkaaga waa lagugu keenayaa waana lagu diyaarinayaa وحرنتي ugu weynayday Soomaaliyeed oo nooceedo kale laga furo Columbus Ohio wixii tafaasiil la xiriir ciwaanada shaashada kaaga haddii aan ku bilaabo dadka Soomaalida ah ee green card ka haysta isla markaana marka ay green card ka helaan isla markiiba inta ay laabtaan wadankii ay ku laabtaan soo jooga wax ka badan 6 bilood amaba sanad soo jooga arintaasi hadda kadib ma jiri doonta waxana aan idinku la wadaagaya arintan haweeneydan waa haweeney ayeeye ah oo wadanka India asal ahaan ka timid magaceedu waxa la yiraahdaa Finketa Fasamseti waa 59 jir sanadkii 1999 ayay wadanka visa ku timid kadibna green card ayaa la siiyay ku dhawaad muddo 30 sano ka badan ayay wadanka Mareykanka ay ku nooleed haweeneydan sidoo kale waa ay shaqeysaa waa macallimad caruurta baahiyaha gaarka qabo ayay waxbartaa gobolka North Carolina guri ayay leedahay canshuur ayay bixisaa wax dambiyana ma aysan lahayn xitaa traffic ticket ma aysan lahayn haweeneydan marka dalkeeda India asal ahaan ka timid ayaa sanadkii 2022 ay u safartay si aabaheed oo xanuunsanaa oo daa ay uga taxadirto marka
xil intii ay maqneed cudurkii coronaviruska ayaa dhacay marka waqtigii ay soo laaban lahayd waxa ay ku darsatay bil marka waxa ay ku soo laabatay Mareykanka bishii February ee sanadkii 2023 7 bilood ayay maqneyd qofka green card-ka haysta Mareykanka 6 bilood ka badan hadii uu ka maqnaado marka uu soo laabanayo immigration-ku su'aalo ay weydiin karaan reinspection ayaa lagu sameeyaa waxa la leeyahay waxa daayacday deganaashadaadii rasmiga ah ee wadanka Mareykanka aad ku haysatay marka qofku 6 bilood ka badan hadii uu maqnaado immigration-ku xaq ayay u leeyihiin inay wax ka weydiiyaan sababta uu 6 bilood ka badan wadanka uga maqnaa oo green card-kiisa maadaama ay tahay inuu wadanka uu deganaado markaas kadib haweeneydii waxa la yiri waa daayacday deganaashadaadii rasmiga ah maadaama 6 bilood ka badan wadanka aad ka maqnayd sharciga immigration-kana sidaas ayuu dhigayaa 180 maalmood ka badan qofku kuma maqnaan karo marka maxkamad ayuu kiiskeedii tagay garsoore ayaana waxa uu diiday 19 May ee sanadkii 2023 ayuu kiiskeedii dismiss ka dhigay oo baabi'iyay maxaa yeelay dawladdu waqtigii loogu talagalay ayaa cadeymihii ay ku soo bandhigi waysay marka waxaa jirtay in ICE ay check in sameeynaysa haweeneydan markasto marka 11 bishan hadda aynu ku jirnay Agosto ayaa waxa ay lahayd in ICE ay check in loogu talagalay ay iska xaadiriso markii ay tagtay marka waa la xiray isla markaana hadda waxa ay ku xiran tahay xabsi ku yaala Georgia marka halka check in ay ka sameeynaysa waa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina halkaasi oo ay deganeed qareenkeeda marka waxa uu maxkamadda ka codsaday bal in cadeyso sababta loo xiray maadaama kiiskeedii dhinaca green card-ka horay maxkamadii ay meesha uga saartay isla markaana waxa hadda garsoore uu ka dalbaday dawladda maadaama haweeneydan ay macaan qabto isla markaana daawooyin joogto ay u baahan tahay in la cadeeyo sababta loo xiray wasaaradda amniga gudaha marka waxay leedahay qofkan waxa uu ku xadgudbay shuruudihii deganaashaha ee green card-ka uu haystay sidaas darteed in ay hadda xiran tahay waa dooq iyadu ay sameysay marka iskeed ay isku masaafurin kartaa marka arintan waxaan uga gol leeyahay dadka Soomaalida ah oo intay iska baxaan 6 bilood ka badan iska maqnaanayo leeyahin green card ayaan haystaa intii aan rabo ayaan maqnaan karaa green card-ka waa laga cishan karaa waana lagu masaafurin karaa inta maxkamad lagula tiigsado maxaa yeelay green card-ka waxa loogu talagalay waa deganaasho rasmi ah qofku wadanka inuu ku joogo hadii uu baxayana 3 bilood ilaa 6 bilood uu wadanka ka maqnaado ama bil ama 2 bil hadba adigu intii aad doonto marka haweeneydan waa ayeeyo waliba 59 jir ah waligeedna dambi ma aysan gelin waxa waa canshuur bixiye waana macalimad haddana marka waa ay xiran tahay oo xabsi ayay ku jirtaa sidaas ayaa qareenkeeda iyo caruurteeda ay warbaahinta ay la wadaageen dhinaca green card-ka hadii aan eego waxaan ogeyn dawladdu inay amar soo rogtay la yiraahdo public charge oo ah dadka ku tiirsan dawladdu kaalmooyinka ay bixiso amaba barnaamijyada kala duwan ee dadka lagu caawiyo ayaa waxa hadda ay soo saartay amar kala duwan waxa ay dadka hadda kadib green card-ka codsanaya baaritaano dheeraad ah ayaa lagu sameyn doonaa waxaana la kala ogaan doonaa qofkan ma qof si shakhsiyana ugu tiirsan dawladda mise waa qof madax bannaan marka public charge-ku waxa uu yahay qofka dawladda kaar caafimaad ka qaata kaar cunto ka qaata ama guri kira dawladdu qayb ay ka bixiso degan in hadda kadib la eegi doono laakiin arintan ma qabanayso dadka qaxootiga iyo dadka magagaleedoonka laakiin waxay qabanaysaa dadka lamaanaha caruurtooda iyo waalidiinta iyaguna muwaadiniin ah ama caruurtooda hadda kadib keenaya marka waxa dawladdu ay sheegtay in ilaa iyo 5 qodob ay fiirinayso marka qofka green card-ka uu soo codsado foomka la yiraahdo I-485 oo hadda dawladdu foom cusub ay soo saartay bisha soo socotay September 18keedana uu dhaqan galayo marka dawladdu waxay leedahay marka uu qofku green card-ka uu soo codsado saraakiisha immigration-ku waxay xaq u leeyihiin in ay fiiriyaan qofkan muwaadinka Mareykanka ah ilmaha uu dhalay iyo sidoo kale hadiiba xitaa qof ehelkiisa oo dawladda caawinaad ka qaato qofka soo codsaday ma aha yaa qofka soo codsaday hadii uusan dawladda waxba ka qaadan xitaa qaraabadiisa iyo dadka u dhow ayaa la eegaya dawladda wax kaalmo ah ma ka qaataan sheekadan waa sheeko la yaab leh sidaas darteed 5 qodob oo dawladdu ay eegayso la qiimeynayo oo saraakiisha immigration-ka ay qiimeynayaan waxa kamid ah marka qofku uu soo codsado da'diisa ayaa la fiirinaya macnaha qof aan shaqayn karin miya mise qofkan kulay ma aysan sheegin da'du inta ay tahay caafimaadkiisa ayaa la fiirinaya qofkan maxaalada caafimaad oo joogto ah ayuu qabaa waa sidee waxa la fiirinaya waxbarashadiisa heerkiisa waxbarashadu intay gaarsiisan tahay xirfadiisa ayaa la fiirinaya iyo sidoo kale
family ahaan financial ayaa la fiirinaya qofkan dhaqaale ahaan muxuu haysta marka dadka marka ay yimaadaanba wadanka isla markiiba dowladda caawinaad weydiisan jiray oo aan shaqaynayn oo shaqo aan aadaynin hadda kadib green cardka inay helaan waa ay adkaanaysaa marka dowladdu waxa ay sheegtay in arintan ay tahay public charge kan uu yahay mid aan la aqbali karin dadka caawinaadda dowladda ku tiirsan oo iyagu aan madax bannaanayn arintaasina sidoo kale waa arrin kale oo muhiima oo dadku loo baahan yahay inay eegaan marka qodobada inta dadka la aqbalayo oo green cardka aan la siinayn iyo sidoo kale kuwa la aqbalayo waa kuwan halkan ay soo saaraya aad ayay u fara badan yihiin marka qodobada ugu muhiimsan ayaan hadda ka soo qaatay halkaasi ayaad ka akhrisan kartaa sidoo kale waxaa jirta shalay garsoore federaal ah oo fariisata New York oo magaceeda la yiraahdo Jeanette Fargas ayaa waxa ay gabi ahaanba meesha ka saartay amalkii horaantii bishii January maamulka madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka ka imaanaya 75 wadan in viisayaashooda aan la process gareyn karin garsoorahan marka waxay tiri arintaasi gabi ahaanba waa sharci darro waxayna sidoo kale awoodii ka xayuubisay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio waxay sheegtay sharciga federaalka ee immigrationka marka la eego National Immigration Act in qofka halka uu ka yimid iyadoo lagu salaynayo in visa loogu diido iyadoo aan wax sababa loo haynin arintaasi waxay ku tilmaantay mid gabi ahaanba sharci darro ah 75 wadan Afrikaan ayay u badnaayeen Latin America ayaa ku jirta waxaana sidoo kale ku jiray wadamada qaaradda Asia intooda badan marka waxay tiri in qonsuliyadda process gareynta viisayaashii ay process gareynaysay in meesha laga saaro iyadoo aan wax sal iyo raada aan loo haynin arintaasi waxay ku tilmaantay gabi ahaanba mid sharci darro ah markii hore ma aysan ku jirin dadka dalxiisayaasha iyo ardayda dadka viisayaasha ku imaanaya laakiin hadda kadib dadka isku dacwoonayay lamaanaha isqaba dadka caruurtooda u dacwoonayay in maxkamaddu amarkaasi ayay soo saartay laakiin maamulka Trump ayay ka go'daa inay aqbalaan iyo in kale waxaan ognahay horey kiisas fara badan oo maxkamada ah oo looga soo horjeestay maamulka Trump inuusan u hoggaansamin oo kii qaxootiga uu ka mid ahaa marka hadda garsooruhu amarkaasi ay maalnimadii shalay oo jimco ahayd ay soo saartay ugu dambeyntii maamulka madaxweyne Trump waxay wadaan masaafurinta dadka sharci la'aanta marka wadamo waxaa jiray diiday inay dadkooda loo soo celinayo ay aqbalaan Mareykanku marka waxa uu heshiis la galay wadan saddexaad oo wadamo kale oo aad u fara badan oo dad aan u dhalan wadankooda la geynayo arintan hadda waxay ka dhacday Liberia ayaa waxaa loo masaafuriyay toddobaadkii hadda dhamaaday 20 qof 20kaasi qof markii ay ka dageen Monrovia caasimadda Liberia 15 kamid ah diyaaradii waa ay ka dageen laakiin 5 kamid ah ayaa diiday inay diyaaradii ay ka dagaan diyaaraddu waa tan idin muuqata oo aad arkaysaan dadka marka laga soo dejiyo in basas lagu qaado iyadoo la waardiyeynayo hoteelkaasi la geeyay oo xitaa hoteelka albaabkiisa ciidamo ay joogaan oo halkaasi lagu waardiyeynayo marka 5tii qof ee diiday inay diyaaradda ka dagaan haddana waa la qaaday oo waxaa la geeyay magaalada Malabo ee wadanka Equatorial Guinea waa ay diideen haddana in ay ka dagaan xoog ayaa looga dajiyay marka dadkaasi diyaaradii markii ay diideen inay ka dagaan 5taasi qof 3 kamid ah Cuba ay ka yimaadeen halka sidoo kalena hal qof oo nin ah uu ka yimid Brazil haweeneyna waxay ka timid Cameroon iyadoo waaba Afrikaano Afrika ayay joogtaa laakiin dadkan ka yimid Cuba iyo Brazil oo laga tuuray ka waran Equatorial Guinea waxaa jira sidoo kale wadanka kale ee Central African Republic in la geeyay dad fara badan oo iyaguna wadamada Latin America ka yimid sida Honduras, Colombia, Ecuador wadamadaasi ka kala yimid isla markaana Serbia iyo ay ku jiraan iyo sidoo kalena wadamo kale oo dhowra nin Eritrean ayaa ku jira oo xaaskiisa xitaa muwaadin Mareykan ay tahay oo canugu u joogo oo Maryland isaga laga qabtay isla markaana wadankaasi Central African Republic laga marka dadkaasi ma haystaan xitaa wax dokumentiya haddii ay doonayaan inay wadankooda ay ku laabtaan waxay noqonaysaa in safaaradahoodii ay tagaan la cadeeyo qofkan inuu wadankaas ka soo jeedo markaasi kadib haddii xitaa waraaq go home la siiyo uu qofkaasi wadankiisii ku laabto marka arintan waxaa lagu tilmaamay mid aad bini'aadanimada uga baxsan in maamulka Trump dad wadan aysan afkooda aqoonin oo wax xiriir aysan la lahayn in loo masaafuriyo isla markaana waliba diyaaradii haddana xoog looga dajiyo markii ay diideen inay ka dagaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waaro idin la sidaa iyo nabadgelyo